السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت بدنا لك صاحبك كنا هاي ولالك محمد ماري رمضان كريم سو دوادا waxaan rabaa inaan muuqaalkan kaga hadlo maxay raaligelintu muhiim ugu tahay dadka isjecel ama lamaanayaasha isjecel ama kuwa isguursaday ama kuwa hadda xiriir ku dhex maraya intaba badanaa bulsho ahaan Soomaalida marka laga hadlayo way ku adag tahay inay raaligeliyaan qofka kale oo inta badan waxay dood ka keenaan khaladku sidoo u dhacay maana sameeyay sidee raaligelin ugu sameeyaa anoon khaladka anigu khalad yaani dambigiisa lahayn ama yaani isagoo xataa khalad kale wuxuu markasta aan isku daynaa inaynu qiil u sameeyno ma anigu haddaan saa sameyn lahaa sidaas ay noqon lahayd iyo waxyaabo la mid ah gaar ahaan waxaan la hadlayaa dadka badanaa uu maaragtay qoyska ah oo uu guur ku dhex yaalo raaligelintu waxay udub dhaxaad u tahay gurigiina iyo reerkiina iyo haddii aad ubad leedihiin ubadkiina intaba haddii aan raaligelin jirin meesha oo aan laga waayo gurigiina iyo guurkiinaas wuxuu u sahlan yahay saacad kasta ama daqiiqad kasta inuu gurigaasi dumo sidaa daraadeed raaligelintu qofka markaad adigu jeceshahay uu qofkaagii yahay oo qofka dooratay yahay oo haddii uu ubadiyo waxaas jiraanna uu yahay caruurtaada waalidkeed ama waalidkiis waxa muhiim ah inaad barato raaligelinta sida loo raaligeliyo qofka xataa marmarka qaar si gurigaaga ama reerkaaga u sii jiro waa inaad ku dadaasho in aad raaligelinta bixiso xataa marmarka qaar adoo laga khaldan yahay khalad labaad baa dhaca inta badan marka lamaanayaashu ay isku dhacaan oo khilaaf ama ay cara dhex timaado qaladkaasi wuxuu yahay haddii inta qofkiina aad xiriirka lahaydeen ama aad isqabtaan aad khilaaf idin soo kala dhex galo ama dagaal idin soo kala dhex galo uu dagaalkaasi waqti dheer qaato oo aan raaligelin iman oo muddo ka soo wareegto idinkoon wada hadlin ugu xiriirkaasi uu jabay inuu dib u soo laabtana waqti bay qaadanaysaa sidaa daraadeed ku dadaal inaad lamaanahaaga raaligeliso markasta haddii laga khaldan yahay iyo haddaad khaldan tahayba haddii waxa meesha yaala uu yahay wax ka yar ama ka miisaan yar waxa idin dhex yaala marmarka qaar waxa dhaca khaladaad waaweyn sida loo xalin lahaa idinka dhexdiina laakiin waxaad ku dadaashaan in aad markasta raaligelinta aad samaysaan si guriga iyo reerkiina uu sii jiro oo uu sii dhisnaado adayga iyo waxyaabahaasina wuu ku dumaa inta badan reeraha ama xiriiradu marka lagu jiro sidaa daraadeed carabkaaga bar kelmadda iga raali ahow sababtoo ah waxay udub dhaxaad u tahay xiriir kasta oo aad leedahay ama qoys kasta oo ku dhisan oo aad iyagleeshay oo maaragtay udub dhaxaadkiisa aad adigu tahay waa mahadsantihiin saaxiibada sharafta badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.